cusub oo caabuqa dilaaga COVID-19 oo laga helay magaalada Muqdisho. Qodobkaasina waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena Yaasin Ali Axmed Looya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa daha ka rogtay in kiisaska dadka laga helay caabuqa coronavirus ay kordheen oo ay gaareen ilaa 7 qof halka markii hore ay ahaayeen ilaa 5 kiis. qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in 2 kiis oo cusub oo ah dadka qaba xanuunka coronavirus laga xaqiijiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed, taasi oo tirada magaalada ka dhigaysa ilaa 5 qof. waxaa sidoo kale hore loo xaqiijiyay 2 kiis oo deegaanada maamulka iskiis madaxbannaanida ugu dhawaaqay ee Somaliland, taasi oo tirada guud ee Soomaaliya ka dhigaysa ilaa 7 kiis. wasaaradda caafimaadka xukuumadda dalka ayaa sheegtay in 2 qof ee kiiska caabuqa coronavirus laga helay ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho ay kala yihiin muwaadin Soomaaliyeed iyo qof ajnabi ah oo ku sugan caasimadda dalka. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in mid ka mid ah dadkii hore caabuqani looga helay uu ka soo bogsooday, mana jirta ilaa hadda qof caabuqa coronavirus ugu geeriyooday gudaha dalka inta la ogyahay. Yaasin Ali Axmed Looya, Radio Wadani TV.